qaraxaas waxaa sameeyay isku soo xiray ka soo buuxiya gaariga Sayid Cali wuxuuna u soo dhiibay eedeysanaha koobaad Xasan Cali Macallin Barre xasan markii la qabtay hadii qatartiisu gaarigaas umada ka badbaadi lahayd waxa ogaaday oo soo wacay Xasan Sayid Cali in la haayo markuu ogaadana automatic wuxuu qarxiyaa gaariga isaga gacantiisa ku qarxiyo inuu gacantiisa ku qarxiyana sifooyin cadeynayaan haynaa toddobaad gaarigaas gacanta Sayid Cali ku jiray gaarigaas waxa lagu qarxiyay tiknoolajiyada qarxi kartay ee telefoon gaarigaas ku dhex jiri kara intaas haba yaraatay ma jirin Sayid Cali uu soo jaajgareeyay telefoonka ku xirnaa gaarigaas mar kale sidiisu Sayid Cali waa farsamo yaqaan isaga gacantiisa ku sameeyay qaraxa isagana awoodo inuu meeshii loogu talagalay markii loo geeyo inuu qarxiyo eedeysanayaashan waxay muujiyeen khidad cusub oo al-shabaab ay la soo baxeen markii hore haday ku gabanayeen diinta islaamka oo magacyada abu iyo magacyada diimeed ay isticmaali jireen maanta waxay u bedeleen Joy Steam Boy Hassan Boy magacyo noocaas isticmaalayeen dad isticmaalaya isqaabkii alkulistaha oo isku qarinaya nooc cusub oo ay isticmaalayaan way dhagarqabayaasha kooxda farsamooyinka cusub oo ay la yimaadeen waxay muujinayaan hadba nooc cusub tii hore hadii lagu barto nooc cusub inay keenayaan oo ay qaab kasta isticmaalayaan hadda maanta waxay marayaan inay isticmaalaan nooc cusub oo ah dadkii alkulistayaasha iyo qaabkii maxaa la jiray ii sheegay ciyaalziyaha in dad noocaas u dhaqmaa inay isticmaalaan maxkamadda sharaf kale waxaan ka codsanayaa labada eedeysana sidii xeer aliye ugu horeeyay u codsaday in lagu xukumo dil toogasho ah eedeysanaha saddexaad oo ay cadeynaysa dhaqamadiisa la noolaanta uu bulshada kooxdan la noolaa iyo magaca uu bedeshayba waxaan codsanayaa qaab xariga oo u qalanta lagu xukumo wabillahi tawfiiq marka ninkan wuxuu ahaa darawal ah baabuurtan yiraahdo laangaruusulada ka shaqeysa marka ayuu darawalka ahaa muddo badan ay qabteen ay xireen nimankaas ayagu oo ku eedeynay darawada isticmaasha marka uu dambeeyay waxa la hadaan dib dambe jidkan soo martay waa ku dileynaa sidaas iyo uu soo cararay uu dadka gudaha ku deganaa madiina ku deganaa ilmihiisa iyo reerkiisa waxa jira marka cabso ku joogo meesha hal marag ahna meesha lagu soo qoran qiraal asaga ahna lama haayo weligiisna ma noqon marka 383 oo hadda aadiisa ku qoran waa qof markuu qoran waa inuu ku danaysta ama dambiye kale uu ku galo ama waxyaabo kale uu farsameeyo hal xabo uu sameeyay male magacaas uu khaldayna waa sheegay wuxuu inuu darooga iga badatay baarasna kuma imaanana magaca saxda ah sheegay oo yiri warmiyo raaliga hada magaci haday in sheegay magaci saxda ma ah dhageysiga garmaqalka la xiriira saddexda eedeysane intaas ayuu ku dhameystiran yahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonta